iyadoo dawladda Soomaaliya ay doonayso in ay dib saaxada adduunka loogu soo celiyo diyaaradii magaca iyo maamuuska ku lahayd ummadda Soomaaliyeed ee Somali Airlines ayaa kulan arintaas la xiriira waxa uu wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Umar uu la qaatay hay'adda duulista hawada ee dalkaasi iyo madaxa shirkadda Turkish Airlines. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa warbixin waxay ka dhageysteen madaxa shirkadda Turkish Airlines waqtiyadii ay soo martay iyadoona wasiirku uu booqday qeybaha ay ka kooban tahay shirkadda Turkish Airlines. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Umar ayaa warbaahinta sharaxaad ka siiyay kulamadii maanta. farkan aniga iyo wafdiga ila socda aan ku imaanay dalka Turkiga wuxuu ahaa laba qaybood ayuu qaybsanaa. mid wuxuu ahaa Turkish Airlines ayaan u nimid 3 maalmood la joogayna haddii Ilaahay ka raali noqdo. 3 maalmood waxaan ka baranaynay sida ay u dhisan tahay Turkish Airlines, sida loo soo dhisay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay, si innagana haddii Ilaahay ka raali noqdo aan u dhisno Somali Airlines oo muddo dheer raagta successful noqota oo waarta sida Turkish Airlines oo kale. sida awgeed waxyaabihii khaladaadka ay soo mareen iyo dhibaatooyinka ay soo mareen ayaan ka baranaynay. waxaan kaloo ka baranaynay sharciyadooda iyo qaybaha kala duwan ay leeyihiin. waxyaabaha aan ka wada hadalnay ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa sida structure-ka uu u dhisan yahay Turkish Airlines iyo academy-yada ay leeyihiin tababarada meelaha lagu bixiyo. maanta waxaan ka soo dhamaanay flight academy-ga kaliya ayaa inoo haray aviation academy-ga ee hadda ka nimid. na tusayeen koorsooyinka ay bixiyaan iyo duration-kooda iyo inta si ahmiyadda ay leedahay. waxaan rajaynaynaa meelahaas inay noqon doonto meelaha dadka ka shaqeyn doona Somali Airlines loogu tababaro haddii Ilaahay ka raali noqdo. CEO-ga shirkadda si wanaagsan inoo soo dhaweeyay saaka ayaan waqti dheer isla qaadanay inagoo ka wada hadalnay dhisitaanka Somali Airlines iyo gacanta ay ka geysan doonaan haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxaa jira ballamo ah capacity building trainings iyo waxyaabaha nooga baahannahay oo dhan inay naga gacan qaban doonaan haddii Ilaahay ka raali noqdo. Captain Aydurus waxa uu ka mid ahaa duuliyihii Somali Airlines waxa uu sharxay faa'iidada ay ummadda Soomaaliyeed u leedahay in dib loo soo celiyo Somali Airlines. Somali Airlines dib loo soo celiyo. Somali Airlines soo celinteeda ahmiyad weyn ayay u leedahay qaranka Soomaaliyeed. waa midda koowaad. ahmiyadda ugu horeysa waxa weeye Somali Airlines waxay wadataa astaanta qaranka. astaanta qaranka ay wadataa oo ay adduunyada dacladeeda meel kasta la tagayso. dawladdii ugu horeeyay madaxweynaha hadda waxay isticmaalaan diyaarado kale laakiin waxay isticmaali doonaan insha Allah tacaala mid ka muuqata astaanta qaranka. tan labaad ahmiyadda ay leedahay waxa weeye Somali Airlines waa regulator. waxay regulator u tahay shirkadaha dawladda ayaa dan ugu jirta waqtigan xaadirka ah oo waxay noqonaysaa in aysan dhuminin suuqa aysan ka bixinin. Axmed Umar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.